ciidamadan oo ku biiray ciidanka daraawiishta Puntland ayaa lagu wareejiyay madaxweyne ku-xigeenka Puntland injineer Cabdixakiin Xaaji Cabdilaahi Cumar Camay oo booqasho ku jooga magaalada Buuhoodle 135 askari oo ku hubaysan 4 gaari oo tiknika iyo baabuur xamuula ayuu la wareegay madaxweyne ku-xigeenku. odayaasha waxgaradka iyo qurba joogta beesha guuleed garaad ayaa wareejiyay baabuurtaasi. anigoo caaqil cali xaaji cumar qaal oo beesha guuleed garaad cuqaashada kamid ah gaadiid tiknika oo 4 iyo baabuur xamuula iyo 135 nin oo ciidan ayaan ku wareejinaynaa madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland. qolada guuleed garaad la yiraahdo ama barkad badeenaanaysta markana magaca la soo qaato qabiil ahaan ay ka soo jeedaan gaadiidkan iyo ragga kani. aniga way garanaysaa chief caaqil Cabdilaahi Maxamed Deeg baanahay 3 caaqil oo ka 5 caaqil oo kale waa joogtaa. ونحن هذا المعلم بيرسنا وحرق معها وناركس أنا ويس عضينا وأنا سوق كردنا 3 gaari oo dambana waa keenana wadooyin iyo wax iyo horta marka ugu horeysa waxaan leenahay xanay ku jab xaasido ku jab xanay ku had 4 gaari baabuurta waa 4 tiknikada ah iyo gaari xamuula oo ciidanka saadka iyo infantryga u qaaday ciidanku 135 way hubkoodii yaryara wata tiknikadoodu waa 4 gaarigaasina waa ka waxaan leenahay madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland barkad wixii laga sheegay maanta ay fagaare yaalaan. isimo cuqaal iyo waxgaradka Buuhoodle ayaa dhankooda bogaadiyay ciidankan lagu soo wareejiyay dawladda Puntland oo ka mid noqonaya ciidanka qalabka sida ee Puntland. madaxweyne ku-xigeenka dawladda Puntland injineer Camay ayaa u mahad celiyay beesha ku soo wareejisay ciidamada iyo gaadiidka dagaalka oo ka mid noqday ciidanka Puntland. ciidankanna 135 ciidana iyo 5 gaari oo 4 tiknika tahay iyo gaariga xamuulka ahaa siday qalabka yaanu la wareegnay si cad baanu la wareegnay waxba yaani toogna maxado waa la wareegnay waana ciidan dawladeed laga bilaabo hadda waxa weeyaan ciidan dawladeed waxa weeyaan inta kale dhulbahante guud iyo gaar ahaan reer caymeed waxaan leenahay sida barkad sameeyay waxay la tahay dalkan waxa wax ka noqon doona ama waxay doontaba ha ahaatee wax ka noqonaya ninkii xoreysta dalku hadda waa la haystaa marka ninkii xoreysta oo baa wax ku leh min fadlakum hadhoobayaan la kala caban la kala yaad sheegan waxaan leeyahay gaadiid fara badan baa yaala wixii ka qayb gali karay hadeer soo baxeen wixii gadaal imanaya inay yimaadaan difaacana sidii uu sheegay Suudaanku waa hal dhagax baan laba shibrood ku dileen. Khadar Cawl Ismaaciil Goobjoog Buuhoodle.